السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي من كاميول بالعالم كتبتن آد بعد سلامنا ما أنت صفر يب قامون بن أول أنت إن لكن كلمات وكريها إلا وحلاصي صعوني اللي بيجي تمصعود حتى كسي بدنا إلا استعت مصعود ملاس وحنكون جهنا حقاس يسيلع وحن سلين هذا كثير آد كأقرح بدلنا السيلع هدان خمنو إن هدي أي صوت قلنا نغطينا العيبات ويسود أفنو waxaa la sheegay in ay leedahay 7 jasiiradood in ay leedahay laakiin 7 jasiiradood waxaan rajaynaynaa intii aanu ka gaari karno intii karaankayga intii awoodeeda intii waqtiga noo saamaxo intuu ilaahay waxaan hore qorantay mugti laakiin anagu ficilkii baan leenahay marka waxaan rajaynaynaa maanta inaanu safarkaas quruxda badan leh aanu saylac ku tagno waxaan doonayaa maanta chance-ka quruxda badan leh inaan ka soo faa'iideysto ina mariya waxa kale ee safarkan ugu helinaya asxaab badan ku mid yahay Mr. Khalid Sike waxa kale aan idin sheegaynaa ninkii Cabdirus محمد عبد الله عيدروس أصلاً واحد وجوجا أديس أبابا هول يربولي هاي وشار إلهي إنه وصل لما يرجعنا أصحاب تجوجا أديس أبابا حر قف كمية عيدروس هو وصل ارتبطت إن أنا يورو بهاين هول شجينا في كتاي سلوا أبو يقول أدون فيها تجو إذا كل واحد تيسان بعديه إن كان سجنوا قرب تجوجا نو نلا صعدا يا مان يا وصاب نيجا السلام عليكم عاد أصحاب السلام وصاب يا حسب جري الصحابة غالي حقول السلام يا سلامة السلام كل حلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى يا واي أجيدرس عبد الله جمال عبد الله صاحب ما توا لطبال يا صمها واي وحرجينا إن شاء الله إنه دونتا إلى هنوك أسطورين كلي أضباش يا قنا نقوم تشرو مركب وحرجينا إن شاء الله إنه نو يا كل ما يقالوا علنك جواهبه شرفك جوها جوجني أتكها قبيشة وهل الذينو هروين كو إرمانو أتكو هيرانيسي صاحبي هذا الضوء أمرنا وحلا هذا الضوء عاد والضوء هذا خطر بدن هذا قاري كليه تأيوم ما مرك ريا برتا إلا ميل سران كنمي الله حاجة سلام ريا الله ضوء أنا والضوء يضوء خطر بدن أيوم كميديا إن الدلك برتنا عيدها أو ضبا فريسن هذا اللي يجمع شيء كده نوحي إذا كتب بيه حنتي معان وميدان هاي لقى أوراني هلا يوي حنتي معان وميدان هاي لقى أوراني هلا يوي حنفي إيو كليليو برف مالير الكينو يا إناقا هليني الصومالية The next day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ونكسنات بأيدي سلامنا هذا ساعد وحي شيء سلحدي يبركي مقالنا سيلع وحد مقالة آذو كلية دلتد هذا هو أيضا ساعد أي شيء وقت يصعدنا هيكون كوحة وشيء يصدق يصدق إنه مريض هلو ترى لبي تمام كمية كود مركي ميلها سيقالو حلقة على إني قالو دوري أفرتن إياه حكوري أفرتن إلى تضبي صدق ميلاس وحن رجينا مقالنا كده تاريخ آذو وينو عجايب أي لاد هاي waxa ku yaala intaas oo boqortooyin ay isku soo kala bedelay boqortooyin Ingiriiska ku Cusmaaniinta ilaa boqortooyada awdal bala sheega boqortooyin Ingiriiska dhismayaasheedu oo dadkaysan Cusmaaniinta sidoo kale wada arkaysan dekadii dhiseen masaajidkii weynaa ee waxaan kuuriyay loo tukan jiray xagga iyo Baytul Maqdis ee qiblateen kaniisada ku yaala inta aanan waxa soo dhan aanan hawlahaas oo dhan aanan soo duubin waxaan jeclaanay maadaama xilli hore ay tahay bila buuq iyo saxmad ay tahay inaan droonta ku soo duubno
oo magaalada oo hurdo oo bila buuxa inaan drone ku xaaj subax wanaagsan waa ninka kaliya tii la soo jeeda saaka hantiyay macaan waa midaan hooy laga oranay hadda ay qaar badan oo asxaabtii ay soo kaceen ninka khaalidkii iyo dadkaas ay ka mid yihiin barteeda lafteeda waxa la noo sheegay waa xabaalo weeyaan waxa ku aasan bareeri cabaasiyiintii haddaad maqasheen ilaa waxa ku aasan bareeri 500 oo qof waa xabaal wadareed aad arkaysaan anigu waxaan ku soo gaarnay meeshan oo burbursan halkan waxaa la yidhahdaa shalaambila waa eridan xaafadan ay ku taallay seylac ayaa la odhanaya qaybtan shalaambila marka waa cabaasiyiintii oo ciraaq bay ka soo jeedaan halkan waxay u yimaadeen in ay diinta soo gaarsiiyaan geeska afrika soomaalida halkan degelid markaa waqtiga muusigay jeclayd way la yaabeen way iska hor yimaadeen iska horimaadkii waa dad dhulkoodii lagu yimid soomaalidu 500 bay ka dileen 500 markay ka dileen intii hadha way farxatay iminka hadda waxaa loo yaqaanaa shariifaanta dadkii markaa ka badbaaday kuwa ka badbaaday ayaa shariifaan la yidhahaa marka saasay diinta soomaalidu kusoo gaadhay in dagaalka iyo xoogga ay kusoo gashay diinta soomaalida bartan aan joogno Seylac waa meesha ay ka soo bilaabantay taariikhda diinta islaamka ee ka soo gashay geeska Afrika oo dhan waa meesha ugu horeysay ee ay yimaadaan dad muslimiin oo faafinaya diinta islaamka markaa wuxuu inoo sheegay markii ugu horeysay ee ay soo galeen dadkii diinta faafinayay dadkii halkan deganaa Soomaalidaas markaa xilliga diinta ma haysan diinta islaamka Soomaalida xaggan deganay waqtigaas waxay ka soo horjeedeen diinta islaamka deeto waxay la dagaalamayeen si aan looga baabiniyo dhaqamadooda iyo ciyaaraha ay jeclaayeen waxa ka mid ah ciyaaraha ay jeclaayeen Seyliciga oo music lagu ciyaarayo marka dadkaas waxay ka soo horjeesteen diinta islaamka faafinaysa waxyaalahaas ma ogoleen marka iyagu waxay diideen si aan dhaqankooda looga kaxeeyo asxaabta muhiimka marka hadda iska quraacno hadii ilaahay dhaahdo air channel magaalada hore isaga sii galo quraacda lagu karaacay هذا كان هيركو قاصر هذا كل صوت شايف laga soo gaadho wixii naga maqan ba kuleeliyo baraf male dhulkeenu yee inaga halayne soomaaliyey hoy hooda la weeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume hanfi iyo kuleeliyo baraf male beelaha maqsinada qabow ee dhulka xeebuhu waa bartan oo kale weeye moogta xaggeer baa iska seexanaysaa xaggeer baa juudiga isaga qaadanaysaa meeshan aad bay u kulusho waxaa kuli meel la dhex marmari karo amba la dhex soo socon karo haba yaraatee ma jirto hadda waxaan isku daynaaba in doontii lanoo soo qabto oo waxaan ku aan la heshiino kadibna ilaa aanu sacaado diin aanu toos aanu sii raacno intuu de waxaan kuli doonta la soo kaxaynayo la doonayo xaggan baan waxaan kuli qof walba xaggiisa yar maqsinkiisa yar fadhiga ayuu waxaan kuli iska dhex joogaya waayahay saaxiib yaal waa igaadhay xilligii aanu doonta raacinay waxaanu xoogaa aanu yaro sugno ma sheegi karno intaasoo kilomitir baa loo soconaya ilaa 30 kilomitir meelahaasaa laga yaaba in loo socdo sacaadadiin ila maryaha haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane wala diyaar garoobay ila dhaqaaqun baa la sugayaa اللهم صل على محمد وحمد جدنا حقاس يا سعادة الدين إن شاء الله إلهي نسوي بدع لي هدي إلهي لهضم أطوان ستاري دونا وأنا نغاد دونا نكن إلى السعودية وإدريس عبد الله ود الحريصة يا نكن كرنوا مستر سديد وبيلات كيف أشوي واربيرالا تجوز يا أظن درك لا سكري ودرو واضح hantiyay macaan waa midaan hooy laga ما يرجع إن شاء الله ninkan isagoo xisbiga jira kalaab hoosku aad u haysta كلام هوسكيك سناب شات واتساب كيكي ببجي كيكي ما كنت استوعب هذا رحمة علي بالله يا digal waa nin aad u dhib badan weeye moogta marka hadda waa dhaqaaqayna waa doontii baa la istaaraya saasaan ku galbanayna insha allah khayr baan khayr baan doontii moogta insha allah istaagana waxaan taariikhda ma qabaysano oo socon insha allah istaagaysa insha allah haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo
haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane agarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane agarli iyo wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo nasiib wanaag waxaan soo soconay ilaa 25 kiilo ayaan soo soconay ilaa 7 kiiloomitir hadda waanu soo gaadhnay afkii hore ee sacaadadii laga geliyay in badan baan meesha ku haminay inaan nimaadno annaga iyo asxaabta hadda bartaa hore odaa hore aan gelaynaa bartaas saad arkaysan waa dhirtaa iyo biyihii badda oo iyagu si natural isaga taagan iyo cadceeddu markay isku qabtaan dee abaan hadduu nala socon lahay barta wax ka cunan lahaa laakiin se wax kule anagu maadaama nin abaan ugu jirin laakiin abwaanka waa kan dee abwaanka waad qirsan tahay wixiisa carabiga ku gabya ninkan waa carabiga ku gabay carabiga ku gabay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan oy laga orane helayoy hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayoy hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayoy hantiyay macaan waa midaan marba marka ka dambaysa dhirtu way kasii badanaysaa hawaduna way kasii xumaysaa meelba meeshay kasii shisheysay ka dhir badan tahay aad bay uga kulusha sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay hadda maadaama inta dadka naga yar baktiyey laga yaabo 49 amba 9 inay meelaha taga laga yaabaa waxaad ka dareemaysaa heerkulka iyo waxa biyihii iyo cadda marka isku kaa dhacaan waxaad moodaysaa wax kulmi koronto laga soo shaqeey hadda weli xoogaa baa maahan in yar baan sii socon doonaa let's go hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu ye inaga halayne soomaaliyey hoy hooda la weeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo ورقة إلهي مسوي بالعلي عزيز عبد الله كلون كلون بضيع قاتين كلون كلون ورا سيد كلون عايز ضيع والله سيلع waxay ku caantahay ciyaar la yiraahdo Saylici ciyaartaas oo ninka la oran jiray Ibrahim Saylici oo ugu tala galay dadka markuu ilbaxnimada soo gelinay ama diinta soo gelinay si ay u bartaan dadka wuxuu arkay ciyaarta jecel si ay maartay diintana u dhexgeliyo ayuu u soo qaatay ciyaarta Sayliciga la yiraahdo ee la yiraahdo sallallahu alayhi wa yaalay markuu
hoy laga orane